nabiguna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam 40 salaadood ninka takbiirada soo gaadha 40 maalmood baan leeyahay 40 maalmood ninka takbiirada soo gaadha shahaada baraa'a baa la siinaya inaanu ahlu naarka ku biiraynin xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam 40 yowman ninka takbiiratu lixraam ka qayb gala waa dadka helaya buu nabigu ku tilmaamaya baraa'a min annaar baraa'a min annifaaq waa laba shahaado idan waa qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay wuxuu kaloo nabigu ku daray laba nin oo ilaahay dartii isu jecel wax kale oo ka dhexeeya aanu jirin laa hanti walaa qabiil walaa abtirsiinyo walaa wax kaloo isu keenaa ma jiro waxa isu keena wuxuu qofkaa ku jecel yahay uun ilaahay dartii inuu qof jidka wanaagsan maraya warajulaani taxaaba fi llah ilaahay dartii bay isu jeclaadeen ijtamaca calayhi watafaraqa calayh taasunbaa isu keentay ku kala tagaana kuwaasina aakhiro meesha fiican bay ku diraan innagu kaynu u soconnaa waa kan ku xiga markaa dhowr kaluu nebigu sii sheegaya oo uu ka mid yahay nin wax bixin badan oo midigtiisu waxay bixiso bidixdiisu aanay ogeyn oo uu ka mid yahay nin ilaahay xusay keligii oo ilmeeyey way yar yihiin dadka intay habeenkii istaagaan keligood cibaadaystaan ee ooyaa way yar yihiin waa laga yaabaa jamacu markuu jooga imaam cod fiicana ku tukinaya inaad iska yaro khushuucdo ama ilmaysidba laakiin inaad keligaa gurigaaga intaad istaagto warajulu ayuu nebigu ku tilmaamaya dakara allaha khaaliya ilaahay xusay isagoo keliya cidila joogin fafaadat caynaa indhihiisu ooyeen waxaa kaloo haddaba ka mid ah dadkaa maalinta qiyaamay badbaadada noocaasii helaya rajulun طلبته أو دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها نبغى نقول إن أي ويردي قباره مركه هروان إن رجولة دريمية مركه الله بعدنا نلاش عادي قاعد تبدل رجع هنقولي بدل أو نبت الرادية ثاني وعكسها ننسى إلى صوت ضغطي رجل ay gabadhi hungurayso u yeedhay gabadhu gabadh caadiya maaha waa daatu mansabin wa jamaal waa gabadh quruxna leh xasabna leh ama manzila rafiica status leh social statuskeedu waa gabadh upper classka طبقة العليا كترسل إذا gabadhani magac iyo maamuus upper classka hadday ka tirsantay oo almost inay hanti haysatana waa u badantay waa gabadh magac iyo maamuus bale quruxna la siiyey waa wixii qofku uu gabadh ku dooni lahaay oo dhan ayay u muuqataa laakiin ku jawaabay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innii akhaafu allah innii akhaafu allah gabadha ilaahay baan ka cabsanayaa yidhi ilaahay dartii uga tegey haddaad xumaha ilaahay dartii uga tagto waxau nabigu tilmaamayaa maalinta qiyaame ee dadku kadeedku haysto inta kadeedka ka badbaada inaad ku biirayso inta carshuraxmaanka hadhsanaysa inaad ku biirayso waxaa kaloo qur-aanku inoo sheegaya fadiiladaa sare dadka helay nebi ka mid ah yani iyadoo practicala markan iyadoo theory-yaa la sheegay laakiin iyadoo practicala ayaa ilaahay qisada haddana qur-aanka inoogu soo arooriyey nebi yuusuf oo wiil qurux badan ahaa laakiin saynu naqaano la tuuray walaaladii god ku rideen dabeetana qola socotay heshay ay iibsatay boqorka laga iibiyey gurigiisii imra'atulcasiis loo geeyey nebi yuusuf markaa guri buu ku nooliyey ninka meesha maamulo gurigiisiiya gabadhuu qabay oo culamaadu tafsiir ay yidhaahdaan gabadh qurux badan bay ahayd suleekha ay sheegaan magaca oo ay qurux ku tilmaamaan ayaa nebi yuusuf hunguraysay nebi yuusufna wuu ka dhowrsaday
hunguri qura maaha waxay isku dayday inay dalabto weliba waxay tijaabisay meel uu ku qanci karo inuu ku badbaadayo inay geyso waqallaqat alabwaaba baa ilaahay albaabadoo dhan way xidhxidhay waraawadatu alatii huwa fii baytiha raawadatu waa doondoontay baa la yidhi almuraawada si ka waa xodxodatay si kasta ay u heli lahayd waxaa kaloo la sheegay waqallaqat alabwaab albaabadana way xidhay lama odhan qallaqat waa xidhxidhay intay adkayn karaysay oo meeluu amni dareemi karayo ayay hagaajisatay kadib baa waxay ku tidhi hayta lak soo dhow adaan diyaar ku ahay bay leedahay inta badan way adagtay gabadhu xataa hadday xumaa doonayso inuu iyada ka soo baxo nolosha caadiga ee la yaqaano gabadha xishoodunbaa ku jira inta badan raggaa hunguri badan oo waxa kani ka yimaada laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisadii oo cagsiya qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya waa gabadha lafteeda markaasuu diiday gabadh qurux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh weliba waa iyadaa sayid u ah waa addoonkeedii dhanka kale markaad eegtana waa qariib inta badan qariib kuma xishoodo meel aan lagaa garanayn markaad tagto waxaad sodhanaysaa dee malaa waad fasaxantay laakiin aabba iyo adeera iyo reeruu meelahay joogaan waad siro dhudhuba yaad ceeboobin baad is leedahay cidlada laakiin lama ceeboobo socankaa maaha ama meel aan cidibo kaa garanayn markaad joogto lama ceeboobo nebiyullaahi muusa nebiyullaahi yuusuf tolkii lama joogo abihiyo reerahoodii waa laga keenay meelaan cidina ka garanayna waa addoon yar ka yahay buu joogaa meeluu addoon ka yahay waan cidi garanayna buu joogaa waa dhallinyaro qofku markuu dhallinyarada yahay iyo xooggii soo dhami jooga waa ma guursan reer ma leh oo ninku hadduu reer leeyahay waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya reer buu haystaa reer ma leh idan waxay yidhaahdaan meesha tan waxaa yaalla dawaacu zina kullaha wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zino ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhallinyaro waa addoonoo magaca ilaashan maayo markaa nolosha caadigaa loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leeday iyaduu sayid u ah guri cidlaa bay joogtaa iyadaa u yeedhaysa xawaalay ibnulqayim ilaa 15 masalo tiriyaayo uu leeyahy waa dawaacu zina baa qisadata ku jira laakiin muxuu ku jawaabay qaala macaada allahi inahu rabbi axsana mathwaaya inahu laa yuflixu الظaalimuun wuxuu ku jawaabay qaala macaada allah ilaahay baan ka magan galay buu leeyahy waxaad sheegayso ilaahay qofka mu'minka ahi yatacawad qofka mu'minka ah waxaa caado u ah inaanu xooggiisa qura ku kalsoonaanine rabbigii inuu magansado wax kasta inuu rabbigii magansado iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaa wadaanu kaa kaalmo dalbayna acuudu billahi min ashayطaan الrajiim atacawud xumoo dhan wuxuu leeyahy macaada allah ilaahay buu magan gelaya waxaanu tilmaamaya inahu rabbii axsana mathwaaya inahu rabbii damiirka inaad alle u celiso oo ah ilaahay waa i nimceeyo god buu iga soo saarayo waa dhibtii rabbiga iga soo saaray ee nicmadana siiyey macaasidiisa ugu abaalgudi maayo yani sideedaba hadduu qof wax ku siiyo qofkaa waad jeclaanaysaa waa dhaqanka aadanaha si qaabka ilaahay u abuuray hadduu qof wax ku siiyo waad jeclaanaysaa qofku markaa hadduu gallad iyo lib kugu leeyahay haddii aanad waxba tari karin calal aqal agtaada lagu xuman maayo ka warran qof hadduu wax ku siiyo oo wixii uu ku siiyey aad u adeegsato saad isaga u dhibi lahayd kaa dadku waxay yidhahdaan waa maxay waa la'iim oo qof xun qof aad wax siinayso oo haddana wixii aad siinaysay ku talagalay inuu adiga kugu dhibo
dhaqan xumada aynu inta badan ku dhaqannay ilaahay kula dhaqanna waa nooca ilaahay baa ina nimceeyey caafimaad ina siiyey waxa kalena siiyey awadan leh wax walba leh wixii uu inagu nimceeyey buu wuxuu yidhi bes waad mahadsantahay uu inagu dhaha cibaadadu waa ilaahay aynu leenahay waad mahadsantahay ilaahay aynu u mahadnaqayno halkaad ka mahadnaqi lahayd ayaad wixii uu nimco ku siiyey isaga macsidiisa ku adeegsatay saad isaga u caasii lahayd ayaad ku adeegsatay oo waxaad u faalo nabiyullaahi yuusuf markaa wuxuu leeyahay macaada allahi inahu rabbi axsana mahwaaya inahu laa yuflixu الظaalimuun ilaahay baan magan galay rabbigay meesha way wanaajiyeen ظaalimkuna ma liibaano mufasiriintu tafsiir labaad bay saaraane waxay leeyihiin waxa uu isna xurmaynayaa ilaalinaya ninkan abaalka ku leh waayo ninkani markuu soo iibsaday wuxuu ku yidhi wiilkaa ilaali buu ku yidhi saa suuradda ilaahay kaga warramaya akrimi mathwaahu meeshaad dejinaysa iyo waxaasoo karaamee buu ku yidhi markaa odaygaa guriga keenay oo kala dardaarmay reerka iyo gabadha in ninka kan si fiican loola dhaqmo idan wuxuu leeyahay nebi yuusuf abaallaawe ma ihi ninkii sidaa ii galay inaan haweenkiisa u weydaarto in xaaskiisa u weydaartaa inahu rabbii buu leeyahy inahu rabbii waa kii ii barbaariyey oo axsana mathwaaya akrimii mathwaahu waatii uu yidhiye waa axsana mathwaaya buu leeyahy degaankaygana fiicnaysiiyey marnaba dulmi maayo buu leeyahy inahu laa yuflixu الظaalimuun idan nabiyullaahi yuusuf waxaa ilaahay tusaale qur-aanka ugu dhigay ee tusaalayaasha waaweyn ee nebi yuusuf laynooga soo siiyey ay ka mid tahay cifada weliba cifatu lisaan iyo cifatu farji labadaba nebi yuusuf waa laga soo naqlinaya walaaladiisii wixii la ogaa ku sameeyey ee yidhi tuug buu ahaa iyo in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl ilahay wuxuu yidhi faasaraha yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahu xataa inuu ku yidhaahdo waar idinkaa tuuga wuu ka xishooday cifatu lisaan carabkiisuu dhowray halkana farjigiisuu dhowray markay aragtay inaanu oggolayn ayay waxay isku dayday inay kufsato inay xoogto arrinku hayta laka soo dhaaf markan xoog buu maraya waxay isku dayday inay xoog ku qabato xal kale markaa muu hayo waa cararay cagtuu miciin biday inuu ordo oo baxsaduu isku dayay isagoo ordaya iyana ay eryeyso oo marada dhabarka ay dilaacisay ayay odaygii guriga lahaa ku kulmeen albaabka markay albaabka ku kulmeenna arrintiiba way rogto waxay tidhi maa jazaau man araada biahlik suu'an ilaa an yusjana oo cadaabun aliim waa maxay abaalmarka bay tidhi ninkan reerkaaga xumaha la doonay in la xidho iyadoo boqorka waddanku ama madaxweynaha waddanku haweenaydiisa lagu yidhaahdo ama waad la cayaaraysaa ama waa lagu xidhayaa hadduu boqorku xidhana si aad uga soo baxayso cidi garan mayso haddaad boqor uu xabsi kugu rido si aad uga soo bixi doonto iyana wax la garanaya maaha halkaa markay joogto nebi yuusuf rabbi buu ku noqday ilaahay buu baryayaa muxuu ilaahay weydiisanayaa rabbi الsijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh iyadu fadalika aladi lumtunanii fiih walaqad raawatuha can nafsihi faاstacsan bay tidhi walain lam yafcal ma aamuru layusjanan haddii waxaan rabaa uu samayn waayo bay leeda waa la xidhi kuwa la dulleeyena wuu ka mid noqon haddii lagu yidhaahdo xabsi iyo kala dooro hadda ma aha dumarka dhulkooda maraya iska dah halkan waxay joogtaa xabsi iyo qoyska boqortooyada inaad la tumataad kala dooranaysaa nebi yuusuf markaana xabsigu doortay inaan rabbi caasiyo ayaa wax walba ka xun buu leeyahy saa daraaddeed wuxuu leeyahy rabbi الsijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahu xabsiga ayaa agtayda lagaga kalgacal badanya waxay igu yeedhayaan inaan xabsi galo ayaa ka roon buu leeyahy
إلهينا سبحانه وتعالى وحط المام يا مرك ولي بوحد وإلا تصرف عني كيدهن أسب إليهن وأكون من الجاهلين إلى أو هداند مكر جود يا خيام جود يا نجر تودا هداند أضو يدافنين وإلك ده يقول يا أخي هداي دعضتها سنة وحمقرتها كبيرة يا جاهلة قف كستو إلهي عاصية جاهلة جهل ومعلومات كماها علمه علمه معلومات ماذا حاجة كتيرة معها علمه هو دورسان وانت هتكون غلطة علمية انت تربي كل وين هي يا محارمتي سكت كجاب سنة يسوع يا إلهي سبحانه وتعالى وحني معك السيئة أنا دواء بالقدينين مع سيدي سكو سمايس سادر هذا النبي يوسف عليه له حبسه أيام نام وحي ويريان هدي أنا ضدوا دورنا واتشبيا إلهي وحليه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إلهي الدعاء دي مكاقبل دعاء دي مركو لقى أقبلي محال لو سمي حبسي قال لك إيه إذا الدعاء لقى أقبلي وامحي حماها هي حبسي حماها حن مركا كان حبسي يعني واحل وحماها سا إلهي سودا فيه دبتنا حبس على كان حبسي إلهي سيدا فيه يوم حل قدقي مضح إلا وكان نقضي وزير كواتك كتلي إلا ومركي دبي قاعدي ودور سونيد ودور سنة هذا طريقة كانتي أفرتي دبا أيها الأحبة نبينا عليه الصلاة والسلام حينات المامية من يضمن لي بين لحيي وما بين الرجلين يا لبدي سدان انت ورد حيسة الضمانة قاضية إنه إلاليه يا لبدي سادين انت ورد حيسة وعرب يفرجك نبي محمد بن حلي كما ضمانة قاضية إنه عرب كيس إلالنا يوم وأنو حمك كنا واقعين فرجك كيس إلالنا يوم وأنو حرام كدونا نين هذا ضمانة ده إنه والله نمادنا نبي محمد نبي حلي أضمن له الجنة أن الجنة أيام ضمانة قاضية حديث البخاري هذا إذا قصاص ما يسان وبلغ هكا صوب بحدان أنه حندي بلغ قاضي ابن النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة لسان إذا دور سوندو وعبادة كهبين ودن تاجن وتجاري كرتا هذا عرب كاجي يفرج كاجا قوة دورة كم من نقطة